waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo Calanka TV. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Mudane Cirre oo xilka laga qaaday, shakhsiyaadka Axmed Madoobe la doonayo inay ku soo baxaan kuraasta golaha shacabka oo la shaaciyay, go'aanka Saciid Cabdulaahi Deni madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ma noqon karaa mid isu soo dhaweeya xukuumaddiisa iyo agaasimaha uu xilka ka qaaday ee BSF. maxaa laga dheehan karay khudbadii uu jeediyay Saciid Cabdulaahi Deni? qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena habeenimo ku daawan doontaan. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena, subscribe oo program bilaashka si aad u noqotid daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid. guddiga doorashooyinka qaranka ee heer federaal ayaa ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen gudoomiye Maxamed Xasan Cirre oo ahaa gudoomiyaha guddiga tan iyo markii la aasaasay. kulankan ay isugu yimaadeen dhammaan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa looga dhawaaqay in xilka laga qaaday kadib markii uu soo gudbiyay muushin iyo eedeyn. guddiga ayaa gudoomiyihii hore ku eedeeyay shaqo gudasho la'aan iyo inuu ku milmay arrimaha siyaasadda ee ka socda gudaha dalka. qodobada ay soo saareen guddiga ee lagu eedeeyay gudoomiye Cirre ayaa kala ahaa: 1. in gudoomiye Maxamed Xasan Cirre uu xadgudub joogto ah ku hayo guddiyada doorashada. 2. inuusan wax wada tashi ah la sameyn guddoonka iyo guddiyada intiisa kale. 3. inuu lumiyay madax bannaanida guddiga doorashooyinka isla markaana uu baal maray xeerar hoosaadka guddiga u yaalay iyo habraacyadii guud ee doorashooyinka qaranka. 4. inuu iska qaatay go'aano khatar u keeni kara doorashada uusan guddiga waxba ka ogeyn kuna matelin. 5. inuu sabab u noqday gudoomiyaha inuu xumaado xiriirka kala dhexeeya guddiyada dhexdooda iyo golaha wada tashiga qaranka. 6. wada shaqeyn xumo u dhaxaysa gudoomiyaasha guddiyada heer maamul goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka. dhanka kale, shakhsiyaadka uu Axmed Madoobe la doonayo inuu ku soo baxaan kuraasta oo la shaaciyay. ku soo baxaan kuraasta golaha shacabka ee dhowaan la doonayo in lagu doorto Jubbaland oo banaanka u soo baxay. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaacisay liiska xubnaha guddiyada soo xulaya ergada doonaysa 6 kursi ee ugu horeeya xubnaha golaha shacabka ee ka imaanaya maamulkaas, gaar ahaan degmada Kismaayo. durba waxaa soo baxaya cabasho laga muujinayo sida Axmed Madoobe uu ku wajahayo doorashada golaha shacabka, waxaana lagu eedeeyay inuu kuraasta dhan u diyaarsaday shakhsiyaad uu isaga aaminsan yahay. sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuusan wax talo ah ka siin salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee loogu talagalay inay soo xulaan ergada doonaysa kuraasta. oday dhaqameedyadii rasmiga ahaa ayaa haatan qaarkood si cad uga hor yimid inuu Axmed Madoobe doorashada siduu isagu rabo ka samaysanayo. waxaa fashilmay qorshihii uu Axmed Madoobe ku doonayay in ergada soo dooranaysa dhammaantood laga dhigo askar isaga ka amar qaata, waxaana qorshahan Axmed Madoobe la waday gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland. kuraasta hadda lagu dhawaaqay doorashadooda ayaa la sheegay in Axmed Madoobe uu doonayay inay ku soo baxaan shakhsiyaadka aan hadda kuu tiri doono. kursiga qofka la siinayo: Hob 217 Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Firimbi. Hob 203 Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha doorashada Axmed Madoobe. Hob 82 Cabdirashiid Jirre Qalinle wasiirka madaxtooyaha Jubbaland. Hob 28 Cabdinuur Cali Aadan. Hob 134 Sahre Jaamac Cali Sahre Qorsheel. Hob 113 Maryan Aweys Jaamac wasiirada gaadiidka badda. Hob 136 Omar Yuusuf Galdiid. waxaa kursiga loo diidan yahay Korneyl Khaalid Cabdulaahi. Hob 72 Cabdirashiid Maxamed Xidig. waxaa kursiga loo diidan yahay Cabdi Cali Raagi. Hob 219 Roodo Carab Jinni Boqor iyo Koochar midkood. waxaa kursiga loo diidan yahayna waxa weeye xildhibaan Cabdifataax Maxamed Cali. go'aanka Saciid Cabdulaahi Deni ma noqon karaa mid isu soo dhaweeya xukuumaddiisa iyo agaasimihii uu xilka ka qaaday ee BSF? maxaa laga dheehan karay khudbadii uu jeediyay Saciid Deni? inta badan dadka isha ku haya xaaladda magaalada Boosaaso, madaxweyne Deni waxay ku ammaaneen hadal jeedintii uu maanta jeediyay, halka dadka kale ay leeyihiin
deni danta ayaa urur sheegtay dhibaatadii ka dhacday magaalada Boosaaso ayuu deni ka sheegay inay eedda wada qaadanayaan dhinacyadii ishayay loona baahan yahay inaysan dib dambe u soo laaban wuxuu sidoo kale sheegay in Puntland weligeed aan hoobiye la isu adeegsan balse madaafiic isu garaacay eedeyntaasna ay dusha saaran doonto BSF haddase uusan sii qodqodi doonin wixii horey u dhacay reer Puntland dhagta ayay ka maqli jireen hoobiye ayaa meel ka dhacay xitaa waxa uu sheegay in isaga nafsadiisu uu dhagta ka maqli jiray in Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho la isku garaaco hoobiyaal haddase Boosaaso la isku garaacay ayuu yiri Siciidani wuxuu sidoo kale sheegay inuu ka xun yahay in Puntland oo 23 jirsatay inay tahay markii ugu horeysay oo dhibaato caynkan oo kale ay ka dhacdo hadalkii isimada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkuna uu shaqeyn doono Puntland awalba tale isim iyo waxgarad ayay ku timid haddaba daawadayaal aan dib u eegno hadaladii u muuqday inay dareen shalayto ahaayeen wixii Boosaaso ka dhacay ee uu jeediyay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka kala duwan ee reer Puntland gaar ahaan kuwa hadda ku sugan magaalada Boosaaso inay ka shaqeeyaan nabadda inay ka shaqeeyaan xasiloonida inay ka shaqeeyaan in magaaladu ay ku soo noqoto sidii dabiiciga sida horey ay dawladdu marar badan u cilaamisay dawladdu dadkeeda dagaal kuma wato diyaarna uma aha inay bulshadeeda dhexdiisa ay xabad ka dhigto ciidanka dawladdu waxay u dhisan yihiin oo sharci ugu dhisan yihiin inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka bulshada reer Puntland waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dawladda horena u amarnay in ciidan dawladeed xaaladda hadda Boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin ku sugnaadaan goobahooda qabsadaan shaqooyinkii sugidda nabadda ee caadiga ahayd ee hayn jireen ee booliisku hayn jiray waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan dadkii barakacay ee ka maqan magaalada Boosaaso inay dib ugu soo noqdaan guryahooda waxaan dawladda sida aan horay ugu saarnay guddiyada ka shaqeynaya ee heerarka kala duwan ah heer gobolka bari degmooyinka Boosaaso iyo Carmo iyo degmooyinka kale ee dadkaasi gaareen